helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad ninkii waxa la qorax ugu dil hoos kugu jiidale garsoor cadaalad ah dalka ma ka jira maxaa kalifaya in shacabka qaarkood cadaalad ay u raadsadaan ururka al-shabaab kumanaan Soomaali ah ayaan la dhacsanayn adeegyada hay'adaha garsoorka galdacwadeedyada yaalla xafiiska garsoorka gobolka Banaadir boqolkiiba 80 waxa ay la xiriiraan dhulal isku haysto sida uu hore u sheegay gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya saddex arrimood ayaana sal u ah kalsooni darrada shacabka iyo shaqo xumada maxkamadaha dawladda federaalka Soomaaliya aqoon darro musuq iyo waliba fulin la'aan saraakiisha ciidanka shakhsiyaad ka tirsan dawladda iyo madaxda ayaa ugu horeeya kuwa ku tunta sharciga oo diida inay u hoggaansamaan ninkan waa gaashaanle Maxamed Cabdulle Sinay waxa uu diiday amarro ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xafiiska xeer ilaalinta ciidanka waxa uu xoog ku haystaa dhul ku yaala Gubadley waxa dhacay nin ciidan ah oo ciidan wata oo sargaal ah oo dawladda u shaqeeya oo labisan gaashaan la dhexe waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdulle Sinay waxa uu haystaa hanti anigu aan leeyahay waxa xukumay maxkamadaha dalka dhan waxaan haystaa fulin 18 December 2013 xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidanka qalabka sida ayaa ka codsaday taliyaha ciidanka xoogga in la horkeeno xafiiska xeer ilaalinta gaashaanle Maxamed Cabdulle Sinay oo ka tirsanaa guutada koowaad ahna taliyaha ururka labaad ee isla guutada koowaad taas oo ay ku eedeeyeen 8 muwaadin oo xoog uga haysto dhul ay iyagu leeyihiin waxa ay dacwadu socotay dhowr sanadood inta xeer ilaalintu waxay qorayeen warqado ku taariikhaysan sanado iyo bilo kala duwan maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay dalbaysaa in la soo qabto gaashaanle Sinay Cabdulle hase yeeshee ma dhicin oo xeer ilaalintu waxay ku hungowday inay sharciga hor keento taliyahaasi qadahaas waa dukumeentigi dhulka aan ku lahay waxay go'een 16 bishii 12 كو ورقداس وورقدي دوقا مغالada muqdisho oo soo saxeexay oo gudiga dacwooyinka ay ku cadeeyeen dhulkaasina aan ugu leeyahay 22 bishii Maars 2014 maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u xukuntay xilligaasi Cabdulqaadir Cismaan Shir Cadceed inuu leeyahay milkiyada dhulkaasi balse lama fulin dhowr sano kadib dawladda hadda jirta Janaayo 9keedii 2018 dawladda hoose ee Xamar ayaa cadeysay in dukumeentiyada iyo rasiidyada uu wato muwaadin Cabdulqaadir Cismaan Shir Cadceed ay yihiin kuwa sax ah Juulaay 10keedii 2018 maxkamadda gobolka ayaa warqadan u qortay taliyaha qaybta taas oo lagu amraayo in muwaadin Cabdulqaadir Cadceed inuu hantidiisa helo balse waxa dhacay wax ka duwan ayadoo hada taalo oo la sugayo leeyahay markii la fuliyo waxba fulin la bilaabo lagu fuli doonaa duqa magaalada dhulkaygii wuxuu dhigay dhagax wuxuuna u ballan qaaday inuu degmo uga dhigayo dhulkaas ana iskale muwaadin Soomaaliyeed aan ahay dukumeentigiisa wax ku lifaaqan yahay meesh ku lifaaqan yahay meel kasto oo soo maray waa la yaqaana deegaanka dadka ah yaqaana waxaan rabaa waxa la ninkii waxa la qorax ugu dil hoos kugu jiidale duqa magaalada ma ka maleysanayo inuu isxaan ay sameeynayo aan wax ay qabanayo waxaan baaqay u gudbina madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madax Xasan Cali Khayre boqolaal kiis oo noocan ah ayaa jira kuwaas oo maxkamadaha dalka ay amreen balse aan la fulin